munaasabad ballaaran oo lagu mataaneynayo laguna bogaadinayo aqoonsiga ay Somaliland aqoonsadeen xildhibaanada golaha deegaanka degmada Tower Hamlet ee dalka Ingiriiska. Munaasabadani uu soo qaban qaabiyay xildhibaan Cabdirashiid Faarax isla markaasna ka qabsoontay howlka dawladda hoose ayaa waxa ka soo qayb galay xildhibaanada golaha deegaanka degmada Burco, gudida fulinta ee dawladda hoose, maamulka gobolka iyo aqooyahanka gobolka oo si mug leh u bogaadiyay xildhibaanada Aamine Axmed Yuusuf kaalinta miisaanka leh ay ka ciyaartay aqoonsiga Somaliland ay ku dhawaaqeen xildhibaanada golaha deegaanka Tower Hamlet ee dalka Ingiriiska. himilada ay isugu nimi goobtan maanta waxaan doonaynaa inaanu mahadcelin ballaaran u jeedino golaha deegaan oo ka tirsan London oo la yiraahdo Tower Hamlet, kuwaas oo 18 bishan November aqoonsi siiyay Somaliland golaha deegaan ahaan. golaha deegaanka degmada Burco oo maanta halkan isugu yimid waxay doonayaan mahadcelin ballaaran u sameeyaan himilada ay reer Somaliland ay leedahay ay rumeeyeen mid kamid ah golayaasha deegaanka. waxaanu u mahadcelinaynaa golaha deegaan oo runtii kamid ah ariga Ingiriiska gaar ahaan magaalada London oo la yiraahdo runtii Tower Hamlet oo ah gole kalfadhi intuu sameeyeen motion keenay oo runtii xildhibaanad kamid ah oo dhigayaga ah Aamine Ali oo Aamine Axmed Yuusuf Ali baa laakiin waa Aamine Ali baa runtii ku magac dheertay. Aamine oo ka halgantay halkii ay joogtay inay ka hawl gasho sidii carigeedii iyo wadankeedii hooyo ay uga muujin lahayd ugana hirgelin lahayd saaxiibtinimo iyo xiriir ummaddu meesha ku nooshahay Ilaahay baa ku ictiraafay oo ku beeray, laakiin xiriirka iyo saaxiibtinimada la sameysanayo ay qof walba kartidiisa ku dheer yahay. marka qofka ku sharfa waa la sharfaa, qofka ku xusana waa la xusaa. gol ahaan, maamul ahaan, maayar ahaan waxaanu runtii isla garanay ilaa heer gobol ilaa heer degmo mar haddii ay nagu sharfeen xildhibaanadaasna ay halgantay golaheediina ay fartaag aqlabiyada uga muujisay in Somaliland la ictiraafo ay weliba u dheeraysiisay sidii ay u mataanayn lahayd Tower Hamlet iyo gobolka Togdheer degmada Burco golayaasheeda inay dhexgal saaxiibtinimo ka samayso oo runtii gobollo hore oo Ingiriiska in ay isla inoo ictiraafeen. haddaan runtii waxoogaa warbixin idinka siiyo xaafadda horta ugu horeyn waan hambalyeynaya xildhibaanada. runtii waa taariikhday geli doontaa Burco ahaan iyo gol ahaanna runtii waanu wax lagu xusuusto. runtii waanu samayn doonaa magaalada ka samayn doonaa insha Allah. Aamina oo haliyeed iyada la'aanteed may soo runtii baxeen. xaafadda Tower Hamlet waxay ku taallaa East London. meesha waxaynu u nimi ilaahay baa mahadnaq aynu u jeedino inantaa xildhibaanka ah ee qaybta weyn ka qaadatay ama qayb libaaxda ka qaadatay in aynu sharaf aynu halka kan uga diro iyada iyo wixii la qaban qaabiyay hawshaasba. ta kale waxaan leeyahay dadkeena Somaliland darka ah golayaasha deegaanka imika marayaanay galeen. golayaashii deegaanka dee waa kuwaasoo calamadii ka taagay. waxaa haray inay baarlamaanka isu sharaxaan si ay baarlamaanka u geeyaan fariinteenna. midna waxa weeye walaalaynta iyo mataanaynta labada magaalo haddaanu nahay dadweynihii reer Burco ama aanu afkoodii ku hadlayno. waxaanu mar labaad iyo mar saddexaadba u mahadcelinaynaa xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Aamine Ali iyo tiimkeedii. waxaanan leenahay arrintaasi waa arrin ku dayasho mudan. cidda kale ama degmooyinka kale ama dalalka kale ee reer Yurub ama reer galbeedka oo dhan waxaan leenahay halkan uga baaqaynaa qurba joogta reer Somaliland arrinta Aamine Ali ay qaaday waa arrin ku dayasho mudan. inaynu horta taageero u muujino marka hore xildhibaan Aamina, mar labaadkan tahniyad iyo bogaadin aanu u dirro ay la qabaan golaheeda deegaanka iyo reer Tower Hamlet dhammaantood oo ugu horeeyo maayarkood Master John. waxaan leenahay waanu idin tahniyadeynaa oo idinku hambalyeynaa shaqada wanaagsan ee aad qabateen. waxaan taageero u muujinaynaa inanta Aamina ee aqoonsiga ka keentay degmada ay ka tirsanayd. waxaan aad u hambalyeynayaa inanta iyo aqoonsiga ay keentayba. waxaan leeyahay dadka kale ee meesha gobolada
kale ama meelaha kale jooga iyaguna waa inay ku daydaan inantaasoo inan qiimo le ahayd aniga waxaan arkayay markii ay hadlaysay inantaa waxaan arkayay inay inan qurbaa ku dhalatay weliba haddana qiimo weyn la leeyahay dalkii waxaan jecelahay inay kuwa kale ee la jooga meel ama la midina ay ku daydaan aamina oo jabisay derbi ballaaran oo mataanaysay burco iyo golaha deegaanka ee degmadeeda waxaan leenahay xildhibaanad dadkan reer Soomaaliland waxay ka soo baxay mujaahidiin fara badan dagaal bay soo galeen dagaalkaas mid qori u ahaa mid maamul baan imikana galay waxaad maanta samaysay intii aanu ka sugaynay dadka maqan ee ka tagay dagaalada hore ee imika dagaalka ictiraafka raadinaya waa dagaal weyn oo ka balaarankii qoriga sidii ay noogu ballan qaaday way ka soo baxday waxaan aad iyo aad u salaamaya Aamina Axmed Yuusuf kole anigu cali baa lagu daraya caliga garan maayo waraaqeeda caynkaas ku qoraan jiray oo runtii aynu oran karayno gaaladu waxay xiisaysaa qofka ku biira ama gala dhacdada Google dhacdada وحيسو وين بحق قالوا كتو قيمة وين بيوجود عامل أحمد مكينا جنا وحيلو جتته بوجد على الصومالي لان مركورة وحن همبلية يا سلام وترى مركورة عد كسو قيمة يساء مرة رادسة اعتراف كامل ترتان كصومالي لان وحن عادي عادو السلام يا إن أنت قالك إرير صومالي لان وحن الله هاي مخلوق قدني شودية مصيبة كأجد دعية إن أنت وحن ساكا هرتا عن هدنا غينا golaha deegaanka burco oo muujiyay taageero inanta Aamina Axmed Cali oo muujiyay taageero ballaaran oo waajiba qofka Soomaalilandarkii haddii uu dalka wuxuu taro wuxuu xaq u leeyahay in la taageero inantaasi waxay inaga mudantay ammaan iyo duco iyo koruqaadis iyo calaamad aan waligeed ka go'in oo ay mutaysatay oo amaana ayay inagu leeday waynaynu muujinaa waynaynu kor u qaadnaa waynaynu caalamka barnaa iskeen bartaynana caalamka aynu sii barnaa reer Somaliland guulaha maalin walba soo hooyanayeen inaynu anagu hormood ka noqono raggana waxaanu leenahay hurdada ka kaco idinka qudhigiinu nagu soo biira laakiin maanta waxaan aad ugu faraxsanahay anigu magaalada Burco jooga oo reer Burco dhashay inay Aamina Axmed Yuusuf oo iyaduna deegaankan u dhalatay ay guusha weyn ka soo hoysay magaalada Tower Hamlets oo la walaalaynayo magaalada Burco waxaanu filaynaa faa'iidooyin fara badan inaynu kala helo degmadani Tower Hamlets ee dalka Ingiriiska ayaa noqonaya degmadii saddexaad ee qoysata Somaliland Khadar Cabdirasaaq Saleebaan Khadar Hanad shabakada caalamiga ee Wanaag News magaalada Burco